Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fiidiyowgan waxaan ku eegaynaa falanqaynta wiikan inagoo ka bilaabayna DXY. DXY wiikii hore halkaasii maraysay waxaanan ka sugayaa baan yidhi markasta waxa weeyaan waa down trend. DXY wiikii hore halkaasii maraysay waxaanan nidhi markastaba jihadan suuqan u gelayaa waxa weeyaan waa sell oo waa down trend. Marka halkii exactly way kasoo dhacday waxa la sameeyey impulse correction impulse correction impulse imkana correction kale lagu jiraa. Marka waxaan ka sugayaa waxa weeyaan DXY waxaan ka sugayaa waxa weeyaan markastaba waa down trend. Down trend kan imka muu dhamaan weli waxba u dhiman wuxuu noqon karaa correction kani mid ilaa halkaa yar taga kadibna soo dhaca. Marka markastaba jihada aan u gelayaa waxa weeyaan waa down trend. welina waxaan rajaynayaa in ilaa halkan la jabiyo. Marka jihada keliya taan DXY ka sugayaa waxa weeyaan waa down trend. halkaa exactly way kasoo dhici kartaa laakiin waxaan ka rajaynayaa waxa weeyaan inay in yar kor u sii kacdo kadibna ay halkaa kasoo dhacdo. Marka jihada keliya taan suuqan u gelayaa waxa weeyaan waa down trend. waayo waxaan isleeyahay weli suuqani selkii kamuu dhamaan selku ilaa ugu yaraan halkaa waa la jebinaya. Marka DXY jihada keliya taan ka sugayaa waxa weeyaan waa down trend. Euro USD wiikii hore meelahan bay maraysay waxaana idhi markasta waxaan ka sugayaa waxa weeyaan impulse correction impulse correction impulse exactly sidii aan rabay way u dhaqaaqday waxay samaysay impulse correction impulse correction impulse. Marka imka waxaan rajaynayaa inaad impulsigaas aad ka faa'iidaysatay. Euro USD haddaba haddaanu nimaadno imka wax la yar jebin karaa halkaas oo imka correction ayaa lagu socdaa inkastoo laga yaabo adiga impulse ku yahay laakiin aniga waxa weeyaan waa correction kan marka ilaa halkaa hoose la yar jabiyo ilaa halkaa hoose waa la yar jabin karaa. halkan liquidity baa ku jirta liquidity-ga marka la yar qaado chance-ka keliya tan ka sugaya waxa weeyaan waa buy. Chance keliya tan ka sugaya waa maxay waa buy. Marka ugu yaraan chance-kaasi halkaa uu jebinaya ugu yaraan halkaa waa la jebinaya. Marka markastaba chance-yadan ka sugaya waxa weeyaan Euro USD waxa weeyaan waa buy. Marka wiikan maalmaha ugu horeysa laga yaaba in yar inay soo dhacdo kadibna jihada keliya tan ka sugaya Euro USD waxa weeyaan waa buy. GBP USD wiikii hore waxaan idhi halkaas ay joogto laga kici karaa impulse baa la sameynaya correction haddana impulse correction sidii way samaysay sidii exactly way samaysay. halkaas ayay wiikii hore maraysay halkaas ayay maraysay marka maxaa la sameeyey impulse correction yar impulse correction kale impulse. Markaas waxaan rajaynayaa inuu correctionkii waxaan idhi halkaa ugu yaraan waa la jebiyey. Marka waxaan filayaa inaad intaas impulsiga kasoo faa'iidaystay oo ilaa dhowr boqol oo pip ahaa. haddii aad ka faa'iidaysatay well done ayaan ku leeyahay. haddii aanad ka faa'iidaysan weli imka suuqani impulsigii markuu halkaa kasoo bilowday ilaa halkaa gaadhay impulsigaas uu dhamaaday. Markaa suuqu impulse markasta iskagama socdo qasab waa lasoo nasanaya. Marka imka nasashadii way bilaamatay halkaas ayay kasoo bilaamatay. Marka imkani waxa weeye waa lugtii koobaad waxaan ka sugayaa correction kale ilaa halkaas. Marka wiikan GBP USD waxaan ka rajaynayaa correction yar. Marka correction kan yar ilaa halkaa waa la tegi karaa ugu yaraan halkaa waa la jebin karaa kadibna anigu chance-kan ka rajaynaya waxa weeyaan waa buydaas. Marka GBP USD waan sugayaa inta correction la sameynayo. Marka imka correctionkii ayaa la bilaabayaa wiikan laga yaabaa inuu correctionka lagu jiro laga yaabaa in isniinta ama salaasada in correctionkii markiiba la dhamaystirto kadibna impulsigu bilaabo. Markasta jihadan ka sugayaa GBP USD waxa weeyaan waa sell oo short term kadibna long ayaan u gelayaa. Markaa suuqan selka kama faa'iidaysanaya laakiin waan sugayaa. Laakiin imka halka la maraya waxa weeyaan in suuqu soo dhici karo waa uu soo dhici karaa weli selkii correctionkii muu dhamaan imkun buu bilow yahay. Marka correctionkan ilaa 2 cisho meelaha 3 cisho uu qaadan karaa. Markasta jihadan ka sugayaan waxa weeyaan waa buy. NZD USD wiikii hore meelahaas ayay maraysay waxaana nidhi falanqayntii hore haddaan ku noqdo waxaa idhi halkaas waxa ka bilaabmay impulse deer. Marka impulse baa kor baa la aadaya correction baa lasoo gelaya haddana impulse haddana correction haddana impulse. imka movekeenii koobaad waa uu dhamaaday imka waxa lasoo galay impulse correction impulse imka correction baa socda. Chance-ka keliya tan ka sugaya waxa weeyaan waa impulsigaas. Marka jihada keliya tan u gelaya Euro USD NZD USD baan ujeedaa waxa weeyaan waa uptrend. jihada keliya tan ka sugaya waxa weeyaan uptrend. ugu yaraan halkaa waa la jebinaya halkaa laga soo noqday waa la jebinaya halkaasna waa la jebinaya ilaa meelahaasna waa la gaari karaa. Marka NZD USD waxaan ka rajaynayaa waxa weeyaan suuqu inuu
kor aado. Marka chance kastoo baaya oo i siiyo waan ka faa'iidaysanaya, chance kastoo baaya oo i siiyo waan ka faa'iidaysanaya. AUD/USD weekii hore halkan ayaa la marayay, meelahaas ayaa la marayay. Marka waxaan idhi AUD/USD waxay geli kartaa impulse correction lagu yar nasan karo oo muddo lagu jiri karo, haddana impulse, haddana correction kale, haddana impulse. Marka meelaha la jebiyey ilaa halka la jebiyey ayuu suuqu kala wareegayaa baan idhi. Marka imika waxay ku jirtaa correction dheer ay ku jirtaa, correctionkaas ay ku jirtaa. Marka aagaas marka sidaa looga baxo ayuu jihadeedu caddaanaysa, laakiin jihada keliya tan ka sugaya AUD/USD waxa weeyaan correctionka imika impulse, correction kale impulse. Marka jihada keliya tan isleeyay AUD/USD haddii aad trade garaynayso way u dhaqaaqi kartaa waxa weeyaan waa uptrend. Marka jihada keliya tan AUD/USD kala sugaya waxa weeyaan waa impulse, correction, impulse, correction, impulse. Marka keliya tan jihada keliya tan ka sugaya waxa weeyaan waa uptrend. Chance kastoo downtrend oo siiyo geli maayo, chance kastoo laakiin uptrend oo siiyo waan ka faa'iidaysan karaa. Marka AUD/USD haddii istiraatiijiyadaada ku waafaqdo oo systemkaaga ku waafaqo, chance kastoo baaya waad ka faa'iidaysan kartaa. USD/CHF weekii hore meelahaas ayaa la marayay, waxaana nidhi suuqani u soo dhici karaa. Waxaan ka sugayaa baan idhi waa impulse, correction, impulse, correction, impulse. Sidaa ayaan nidhi wataas halkaas meelahaas la joogo waa laga soo dhici karaa baan idhi. Markastana waxaan ka sugayaa impulse, correction, impulse, correction, impulse, correction. Marka imika sidii uun baan uga sii sugayaa. Marka imika impulsigii koowaad uu soo siiyey, correctionkii baa lagu jiraa. Waxaan ka sugayaa impulse kale. Ugu yaraan meelaha waa la jebinayaa ilaa ugu badnaana halka waa la gaari karaa. Marka USD/CHF weli selkii waxba u dhiman, waanay soo aadi kartaa xagga hoose. Marka jihada keliya tan USD/CHF ka sugaya waxa weeyaan waa downtrend. USD/JPY weekii hore meelahaas ayaa la marayay, halkaas ayaa la marayay. Marka weekii hore waxaa idhi halkaas way kasoo dhici kartaa suuqu impulse, correction, impulse, correction ayaan ka rajaynayaa. Sidii may noqon, correction dheer ay gashay, waxay samaysay correction yar, haddana impulse, correction yar, haddana impulse. Marka imika sidaan u falanqeeyay may noqon, USD/CHF correctionka dheer ayaa la galay, waayo impulsigani uu dhamaaday. Marka correctionkan waxaan rajaynayaa inuu dhamaaday. Haddii halka lasoo jebiyo suuq toos ayuu aadayaa downtrend. Marka chance keliya tan suuqan USD/CHF ka sugaya xawaana impulse, correction, impulse, correction, impulse, correction, impulse. Marka chance dheer oo downtrend ayaa kasoo socda USD/JPY wax kasoo socda chance downtrend oo dheer. Marka chance kasta oo downtrend waan ka faa'iidaysanaya, chance kasta oo downtrend waan ka faa'iidaysanaya, chance kasta oo uptrend geli maayo waan iska daynaya. Marka chance keliya tan AUD/USD ka sugaya waa maxay? Waa downtrend. Ilaa ugu yaraan halka waa la jebin karaa, ilaa halkan waa la soo gaari karaa. Marka weekan waxaan ka sugayaa USD/CHF waa downtrend. dahabka haddaan nimaado, dahabka weli correctionkiisii wuu iskaga jiraa, aaggaas ayuu ku jiraa. Waxaa idhi aagga dhinacii looga dhaqaaqaba dhinacaas ayuu suuqu aadaya. Marka sidaan suuqan ka sugaya waxa weeyaan anigu jihada guud waxaan ka sugaya waxa weeyaan waa impulse, waa correction, waa impulse, waa correction, waa impulse. Marka jihada guudan dahabka ka sugaya waxa weeyaan waa downtrend. Jihada guud ayaan dahabka ka sugaya waxa weeyaan waa downtrend sidaan weekii hore sheegay, laakiin weekii horena waxaa idhi uptrend wuu aadi karaa. Marka ereyada lagu jira waxa weeyaan waa area baalka maxaa dhahdaa aan decision fiican la qaadan karin. Marka imika haddii halkaa hoos loo sii jebiyo, halkaa la jebiyo, suuqani downtrend buu aadaya. Haddii halkaa la jebiyana uptrend buu aadaya. Marka sida keliya tan siday suuqani u aadi karaa waxa weeyaan imika correction baa lagu jiraa, suuqani wuxuu aadi karaa downtrend. Marka probability sida u badantay waxa weeyaan suuqani inuu aadi karo downtrend. Marka dahabka ma trade garaynayo ilaa uu chance fiican ama uu tareenka imika wuxuu ku jira waxa weeyaan consolidationkan ilaa uu ka baxo suuqan ma trade garaynayo. Marka haddii aad isleedahay adigu trade garay, siday u badantay waxa weeyaan suuqani inuu hoos aadayo, siday u badantay suuqani waxa weeyaan inuu downtrend aadayo. fadlan haddii aad channelka ku cusubtay subscribe saar, haddii aad horena la socotayna fadlan share garee, like na saar.